kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baa dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wacaal daray ah oo inaga soo gaaraya dalkaasi waqooyiga Kuuriya halka aad nagala socotaana waa Wardhowr Media. Hogaamiyaha dalkaasi waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa markiisii ugu horeysay waxa uu ka soo muuqday bulshada horteeda kadib toddobaadyo lala muuqaalkiisa. warbaahinta dawladda ayaa waxa ay ku soo warantay in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un markaasi uu soo muuqday isagoo xariga ka jaraya munaasabad toddobaadyo kadib markii ay soo baxeen warar la isla dhaxmarayay oo sheegayay in xaaladda caafimaad ee Kim laga dayrinayo. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya ayaa markiisii ugu horeysay waxa uu ka soo muuqday bulshada horteeda muddo 20 maalmood ah kadib taasi oo soo afjaraysa maqnaashihiisii muranka badan dhaliyay kaasi oo ay jireen warar la isla dhaxmarayay oo sheegaya in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsanayn. wakaaladda wararka ee dalkaasi waqooyiga Kuuriya u fidisa ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano KCNA ayaa waxa ay ku warantay in Kim uu ka qayb qaatay munaasabad lagu dhameystiray oo lagu furayay warshad cusub oo dhinaca bacriminta ah oo ku taala magaalada Suncheon oo ku dhow caasimadda waddankaasi ee Pyongyang. sidoo kale waxa ku weheliyay فريدة مناسبة سراكيل سرسرة أو ودن كاسي كمدا أو أي كجرتو ولاشي كيم يونغ جونغ. وكالة وحا أي شيكتي إن كيم مناسبة وحرق كجريي ورشد عصب أو دينا عبعرمينتا لأركي إن أي كقيب قاتين ددوين آد أفرا بدن ووحي عس لوليا إسلام كاسينا آد وقفر أحسن إن أي ديبي وأركان هقامي يهودا وحانا سيدو كلا أي ددكو أي كفر أحسنايين إسلام كاسنا أي كو أمانيين generaalka ugu sareeya waddankaasi waa Kim Jong-un in uu markaasi uu sabab u yahay in warshadan ay ka hirgasho waddankaasi. Kim ayaa waxa la arkayay sawirro isagoo dhoolla cadeynaya isla markaasina la hadlaya gacan yarayaashiisa xilligii uu xariga u ka jarayay warshadan cusub ee dhinaca bacriminta ah. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo la weydiiyay warbixintan ka soo baxday wakaaladda wararka ee waddankaasi waqooyiga Kuuriya ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Trump oo uu yiri ma doonayo inaan arintan ka hadlo wali. hogaamiye Kim iyo saraakiishiisa sarsare ee dalkaasi waqooyiga Kuuriya markii ay bulshada horteeda ay ka soo muuqanayeen ma aysan xirneen maaska wajiga iyadoo cudurkan safmarka ah ee coronavirus uu adduunka si ba'an ugu sii baahayo. waqooyiga Kuuriya ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa in aysan hal kiis oo cudurka coronavirus ah aysan ka helin waddankeeda inkastoo khubaradu ay hadalkani ay ku tilmaamayaan in uu yahay mid wax kama jiraana. khubarada siyaasada waddankaasi waqooyiga Kuuriya u dhuundaloola ayaa waxa ay sheegayaan in Kim uusan xiran karin maaska bulshada horteeda iyadoo taasi arrin xasaasi ah ay ku noqon lahayd bay yiraahdeen bulshada waddanka waqooyiga Kuuriya. toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ka jiray dalkaasi waqooyiga Kuuriya warar mala awaal ah oo la isla dhaxmarayay kuwaasi oo sheegaya in hogaamiyaha waddankaasi waqooyiga Kuuriya xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsanayn balse ma jirin markaasi warar rasmi ah oo cadeynaya xanuunka hogaamiyaha. wararkaasi mala awaalka ah ee la isla dhaxmarayay ayaa waxa ay soo baxeen kadib markii indhaha bulshada ay qaban waayeen Kim Jong-un xilli si aad loo wada dhowrayay inuu bulshada horteeda uu ka soo muuqdo. dalka waqooyiga Kuuriya oo ah waddan sirqarsasho badan ayaysan warbaahinta caalamku aysan u saamixin in ay xaqiijiyaan wararkii ku saabsanaa hogaamiyahan kaligitaliska ee Kim Jong-un inuu xanuunsan yahay in kale. Kim oo ah jiilkii saddexaad ee qoyska talada dalka waqooyiga Kuuriya haya ayaa iyagu si toos ah isaga dhaxlayay jagada madaxtinimada dalkaasi waqooyiga Kuuriya qiyaas ahaan 3 fac. si kastaba ha ahaatee xukuumadda Pyongyang ayaanan sharaxaad ka bixin maqnaanshihii Kim laga waayay bulshada horteeda asbuucyadii la soo dhaafay taasi oo ahayd mid shaki gelinaysay caafimaadka hogaamiyaha. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalkaasi waqooyiga Kuuriyana waxa ay sheegayaan in Kim ay u muuqato in uu markaasi bulshada mar labaad uu ka soo hor muuqan doono asbuucyada soo socda sida ay ku warantay warbaahinta dawladdu. dalkaasi waqooyiga Kuuriya ayaa si aada waxa uu caan ugu yahay ka dhaga adeegidda beesha caalamka uu ka dhaga adeegay samaysashada hubka nukliyeerka iyadoo arrintan darteed ay marar badan isku dhaceen dalkaasi Mareykanka. waad ku mahadsantihiin dhageysiga qodob wareedkan oo aad kala socoteen Wardhowr Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe garee. haddii aad tahay macmiil soo noqdayna ha iloobin in aad click aad siiso gambaleelka si aad u hesho warbixinihii ugu dambeeyay ee aanu soo galino channelkan.